السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان أمة الصومالية ميل بدونك كتبتين أدبان دين سلامية سلام كذب عشر كان وعشر كان اللبات وحن كجاه اللي دونا هالكوا أيها اللي يابا معلمها سوسة على السوق إنه جارو أسبوع هروان كسو هذلني قار سيدان أوريجينا أي نقطة قارنا ميسن نقل marka mar walba suuqa ayaa saxsan ma jiro dunida qof suuqani boqolkiiba boqol og halka uu gaari karo qof walba oo suuqani ku jiro marka waxaa lagu kala duwan yahay halkee ilaa iyo boqolkiiba qofkani ilaa boqolkiiba meeqa ayuu isdhihi karaa waa laga yaabaa inuu gaaro meeshaasi marka asxaabteeda qaaliga ah dad badan baa isoo weydiiyey forex run ahaantii forex waa suuq caalami ah ma ahan sida lotto kale ama ma ahan sida khamaar oo kale waa wax la barto waa wax boqolkiiba 50 boqolkiiba 80 waxyaabo badan ayaa jiro ku cadeynayo in laga yaabo inuu suuqa meelahaas u gaaro marka waa wax fudud waa wax la baran karo run ahaantii wuxuu u baahan yahay in badan in practice lagu sameeyo marka in badan in practice lagu sameeyo dhibaatada jirta waxay tahay horta qofka waa inuu isaga nafsad ahaantiisa oo iscontroli karaa wax oo aad hubto si fiican aad u hubto inaad gashidaa loo baahan yahay marka waxaa aad iyo aad lama huraan ah inaad marka hore nafsadaada controlsho inaad wax badan barato practice fara badan inaad samayso marka dhibaatada jirta waxay tahay waxaan baranaynaa buy iyo sell sida loo dhaho marka waxaan rabnaa real account inaan isticmaalno may saas muhiim ma ahan ama xataa dadka deemo ku trade gareyna waxaa loo baahan yahay inaad deemo account ay ugu trade gareeyaan si anshax wanaagsan si adigoo lacag real ah oo ku shubtay oo kale waa inaad isticmaashaa money management marka lot size macquul ah waa inaad ku gashaa mar walbo laakiin demo account haddii aad lot size weyn aad ku isticmaasho real account ma isxakameyn karaysid maxaa yeelay waxaad u baratay inaad big size lot oo weyn aad isticmaasho marka lacag fara badan daqiiqad aad ka samayso marka taasina waxay soo dedejin kartaa inaad accountkaada aad gubto wixii lacag kugu jiro aad kulli aad iska dhamayso marka mar walba waxaa beelaa inaan nafsada marka hore soo train garayno insha Allah marka waxa ugu horeysa ka hadlayno waa euro USD sidaan rajaynaynay isbuuci hore wuxuu joogay halkan ayuu joogay waxaan filanaynay inuu supportkan taabto oo kor u aado marka sidaas maysan dhicin suuqa wuxuu ku jiraa wax la dhahayo consolidate waxaa laga yaabaa suuqani maalmaha soo socdo inuu labadan support iyo resistance dhexdooda uu ku jiro supportka iyo resistance dhexdooda inuu ku jiro marka insha Allah waxaan rajaynaynaa inuu suuqa uu soo taaban doono inuu soo taabto support resistance inuu soo taabto oo xogaa yar uu soo dhaco kadibna uu kor u jabsado kor markuu jabsadana inuu mar labaad uu soo taabto inuu soo taabto insha Allah oo kadib hadana kor uu sii aado insha Allah saaba rajaynayaa isbuuca soo socda beega labaad ka hadli doono lacagta labaad ka hadli doono waa lacagta la dhahayo Great Britain USD Great Britain waa sidaan rajaynaynay isbuuci hadda la soo dhaafay wuxuu joogay suuqana boxkan ayuu joogay marka waxaan dhahay suuqa kor ayuu jiminayaa kadibna meeshuu jibiyo soo taabanaya kadibna kor ayuu sii baxayaa hadda sidaad ujeedin suuqa wuu jibiyey wuu soo taabtay kor buu sii baxay marka hadda resistance soo taabtay wuxuu samayn doonaa insha Allah wuxuu soo daaban doonaa supportkeenu soo daaban doonaa kadib kor u jabsan doonaa walillahi alhamdu kor buu sii bixi doonaa ilaa laga gaaro trend line keeni ilaa inta laga gaaro insha Allah sidaa baan rajaynayaa lacagta xigaan ka hadli doono waa New Zealand USD kiwi insha Allah isbuuca soo socda waxaa ka soo bixi doona maalinta arbacada ah markay ku baahan tahay 25 maalinta oo talaada ah 25
xilliga geeska africa markay ka taxay 5 o'clock shanta subaxnimo ama 11 subaxnimo qof walba sida u yaqaano waxaa kasoo bixi doona 3 war oo kala duwan kasoo bixi doona interest rate decision kasoo bixi doona trade statement iyo press conference suuqani New Zealand qof mataa ma ku tarad garan karto insha Allah qof walba indhaha ku hayo qofkii yaqaanana insha Allah ku tarad gareeyo waxaa laga yaabaa inuu spike wax la dhahayo u sameeyo korna inuu boodo oo hoosna uu boodo insha Allah laakiin run ahaantii lacag fiican ayaa laga sameeyaa newska loo warka marka news uu kasoo baxayo lacag qofka uma baahno aqoon fara badan insha Allah waxaan rabaa inaan ka sameeyo istaraatiijiyad sidii loo tarad gareyn lahaa newska insha Allah New Zealand sidaan dhahay isbuucii lasoo dhaafay waxaa laga yaabaa suuqani wuxuu joogay inta ayuu joogay waxaan dhahay suuqani inuu kor u baxo oo inta soo taabto kadibna hoos usoo dhaco oo jabsado ama meeshan intuu joogo laga yaaba inuu hoos oo usoo jabsado kadibna u taabto oo kadibna hoos usoo dhaco really fursad aad u badan ayay ahayd dadkii ka faa'iidaystay intaana waa intaas waxay ahayd ilaa iyo 100 pip qofkii oo lacag yar ugu jirto 0.001 isticmaalo wuxuu heli lahaa $10 qofkii isticmaalo $100 hela qofkii 10 isticmaalo $1,000 ayuu ka sameyn lahaa marka insha Allah hadda sidaa ujeedayn wuxuu jabsaday wuxuu isku dayaa inuu hoos usoo jabsado sellerska waxay isku dayeen inay hoos usii qaadaan hadda wuxuu sameeyey wax la dhahayo Gradstone doji wax la dhahayo sameeyey dojigan macnaheedu waxa weyn suuqa weli go-an ayuu gaaraya laakiin se waxay u badan tahay maadaama uu joogo support area maadaama uu joogo trend line keedu uu joogo oo uu yahay area uu joogo waxaa laga yaabaa waxaan aad ugu badinayaa inuu kor u baxo oo uu soo taabto meeshuu soo jabsaday insha Allah kadibna hoos uu soo dhaco oo kadibna uu sii jabsado insha Allah isbuuca soo socda saaba rajaynaya oo soo taabto ilaa iyo inta inuu gaaro sidaan baan rajaynaya laakiin wax walba Allah baa og saabaan u badinayaa lacagta kale ka hadli doono waa USD JPY waxay u dhacday sidaan dhahay isbuuci hore wuxuu joogay inta ayuu joogay inta ayuu joogay hoos uu soo dhacay suuqu wuxuu ku furmay gaab ayuu ku furmay suuqani gaab markuu ku furmay waa kor ayuu u baxay wuu soo taabtay trend line-kii wuxuu soo taabtay support-kii trend line-kii soo taabtay resistance-kii kadibna wuxuu soo taabtay support-keeni insha Allah waxaan rajaynaynaa inuu jibin doono inuu jibin doono suuqani kadibna uu soo taaban doono kor uu sii socon doono insha Allah saabaan rajaynayaa isbuuca soo socda wax aad war weyn kama soo baxayo USD JPY intaba lacagta xigan ka hadli doono waa dahabka sidaan rajaynaynay muusan u dhicin isbuuca soo socda isbuucii lasoo dhaafay marka insha Allah hadda waxaan rajaynayaa maadaama uu joogo uu jibiyey trend line-keeni uu jibiyey oo meel xasaasi ah uu joogo oo marar badan laga celceliyey support-keeni insha Allah in meesha laga jibiyey uu soo taabto oo kor u sii socdo dahabka sidiisaba waa kor dahabka maalmahani dhan waa kor buu u socdaa marka insha Allah kor in loo gali doono sidaa baan aad u rajaynayaa lacagta ugu dambeysa ka hadli doono waa Nasdaq 100 ama Nas 100 USD qof walba si buu yaqaanaa brokerka qaar US Tech ay u yaqaanaan marka broker magac ay u yaqaanaa insha Allah Nasdaq 100 ama Nas 100 ama US Tech marka waa lacagta ugu fiican waa waxa ugu fiican oo lacag degdeg ah laga sameyn karo
laakiin waxay u baahan tahay maskax aad u badan ay u baahan tahay u fiirsasho aad u badan ayay u baahan tahay suuqani hadda wuxuu joogaa meel xasaasi u joogaa trendline-keeni wuu soo jibiyey marka inta trendline kale cusub aan ka samaysanaynaa trendline-kan kale isagana wuu soo jibiyey insha allah waxaan rajeynayaa inuu kor u bixi doono oo soo taaban doono meeshuu soo jabsaday oo kadibna all the way down oo soo dhici doono ilaa uu kasoo gaaro 74 ilaa meelahaas inuu soo gaaro aad u rajeynaynaa laakiin mar walba go-aanka ugu dambeeya aad qaadanaysid waxa weeyaan suuqa waa inuu jibiyaa trendline-ka waa inuu jibiyaa supportka waa inuu jibiyaa waa inuu jibiyaa supportka ama resistance-ga kadibna waa inuu kusoo daabacaa wax la dhahayo price action pattern engulfing pattern waxyaabo badan ayaa jiro price action marka insha allah suuqani waa suuqa aad ugu fiican insha allah waxaan rabaa inaan sameeyo istaraatiijiyad aan kaga hadlayo suuqani halkee laga istaraatiijiyad aan kaga hadli doono sida loogu taradgareeyo nasdaq sida lacag looga helo nasdaq sida lacag looga sameeyo marka nasdaq halka daqiiqo wuxuu dhaqaaqaa intaas ayuu dhaqaaqaa marka insha allah istaraatiijiyad ayaan rabaa inaan kasoo sameeyo asxaabteeda badanna waxay soo weydiiyeen inaan sameeyo cashiro badan oo dadka bilowga ah iyo istaraatiijiyad badan dadka yaqaana iyagana qaar aad bay iga soo codsadeen insha allah waxaa jiro ustaadii aad u badan oo youtube-ka ka akriyo sida ustaad cabdifataax sharaaco iyo macalimiin aad u badan ayaa jiro run ahaantii oo aan aad kaga akristo aniga laftirkeyga ka daawado marka insha allah youtube way ku jiraan casharada bilowga ilaa iyo ama insha allah aad baan idin salaamaya assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu